xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee dalka sidoo kalena ah musharax gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in haddii xildhibaanada golaha shacabka ay u doortaan gudoomiyaha golaha shacabka uu noqon doono oday Soomaaliyeed oo samatalis ah sidoo kalena isku hayn doona xildhibaanada golaha shacabka waxa uu kaloo sheegay in shaqada baarlamaanka ay ka madax banaanaan doonto hay'adaha kala duwan ee dalka. waxaan u rashaxanahay qabashada xilka guddoonka baarlamaanka. laga yaabaa inaad iswarsanaysaan maxaa ku bixiyay inuu xilka raadiyo. xilka waxaan u raadinayaa muddooyinkan waxaan maqlaynay baarlamaanka xadgudubyo dastuuri ah, xadgudubyo xeer hoosaadka la xiriira. dhaliil baa loo soo jeedinayay inuu yahay baarlamaan jaabka ugu jira madaxda kale ee dalka. marka waa tii haddee halis xataa ay u galay dalka markii baarlamaanka tallaabooyin aan waafaqsanayn ama guddoonka baarlamaanka baan dhahay tallaabooyin aan waafaqsanayn shuruucda dalka qaaday. marka maadaama aanan nin oday ah waayo arag ah khibrad dheer oo 48 sano iyo bilooyin shaqo ah leh, mar hore iskoolaad iyo jaamacadii ka soo baxay, aada u soo shaqeeyey. marka waxaan u arkay inay meeshaas u baahan tahay oday samatalis ah, arrimaha kala dheerin karo, shuruucda waarday adag ka qaban kara. musharaxa oo la weydiiyey rajada uu ka qabo hanashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay inuu ka mid yahay musharaxiinta ugu rajada badan hanashada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. qofkii marxaladan ka gudbin lahaa ee Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan baarlamaanka. baarlamaanku waa aasaaska dowladnimada wey. haddii isagu ku milmo xafiisyada kale waxa weeyaan hadee dabeeshaas la qaadaysa dowladnimadii oo dhan. marka de wixii su-aalaha waa qaadaya, laakiin sababta aan anigu idin la kulmahayo warkaan idin siinaya waxaa weeyaan inaan caddeeyo sababta igu bixisay inaan xilkaas isu taago. marka haddii la yidhaahdana waayo aragnimona dawaabtaan sheegayay, aqoonna mar hore dadka iskoolka soo baxay baan ahay, odaytanimana iyo nabadoonnimana waan u samaysnahay. marka inahaas marka la isku dardaro qofka dejin kara baarlamaanka, isku wadi kara dhalinyarada iyo waayeelka iyo axsaabta kala gedisan, isku wadi kara inaan ahay baan isu arkay. saasaan ugu taaganahay. haddii alla igu guulayana waxaa weyaan anoo xildhibaanadana ka codsanahayo inay codkooda isiiyaan oo maxaan ku idhaahdaa igu aaminaan si aan kaalintaas nabadoonnimada, kaalintaas odaytanimada, kaalintaas aqoonyahanimada, kaalintaas waayo aragnimada iyo khibradda inay u doortaan. ugu dambeyn Shariif Maxamed Cabdalla wuxuu ka mid yahay xildhibaanada waayo aragga ah ee muddo kusoo jiray shaqada xildhibaanada golaha shacabka, sidoo kalena ah siyaasi rugcada ah oo siyaasadda ku jiray muddo ku dhow 50 sano. ayaa sheegay muddo ku dhow 50 sano waxaa meesha loo fadhiyay waa wada tashi. marka qof kale maxaan ku rahaa talaba ugama baahna. marka aniga laakiin ma filayo haddaan meesha taga hataa qof ku dhacaya inuu yiraahdo xafiiska la joogo inuu yiraahdo
baarlamaanka sidaa u maamul baarlamaanka maamulkiisa xildhibaanada ka tashanaya baarlamaanka waxaa la yidhaha sayidu nafsi isagaas xukumo lama xukumo laamaha kale kormeer iyo korjoogteen iyo la xisaabtan lagu leeyahay baarlamaanka marka dabacdaas buu leeyahay haddaan anaga qabtana ballan bal islama gaarayo maaba yani waa automatically dabcigayga iyo taariikhdaydana waa fasiraysaa marka arrintaas dabcan wada shaqayn fiican baan la yeelanayna hay-adaha kale dowladda xildhibaanada maxaan ku rahdaa siyaasadda ku kala duwanaa in lasu soo dhoweeyo waa arrin la samayn karo la wacyigeliyo shalay waa la tartamayay laakiin maanta hal gole ayaa laisleeyahay hal diyaarad baa lasla saaran yahay marka si dhulka nabad ay ugu soo degto waa in wada shaqayn iyo habraaci la mara qof tartamayo oo rajo aan lahayn inuu jiraba ilama aha laakiin aniga dadka rajada leh kuwa ugu rajada badan aan ahay sidaan hadda aan qiyaasahay haddaad u jeeday rajadayda ku guulaysiga guddoonka baarlamaanka waxaa weeye rajo aada u weyn baan leeyahay insha allah haddii layga adkaadana oo qof kale qaatana qofkii qaata ku guulaysta ayaan la shaqaynaya maxamed ruray warbaahinta goobjoog muqdisho